kadib markii uu hanaqaaday hanaankii dowladnimo ee Soomaaliya dowladda iyo hay'adaha ka taageera arrimaha dhalinyarada waxay dadaal dheer u galeen sidii daayarta ay uga qayb noqon lahaayeen hogaaminta iyagoo sameystay ururo ama gole ay ku mideysan yihiin oo maamulo xafiisyo dawli ah ama kuwa madax bannaan kuwaas oo dhanka kale ay ku fuliyaan hawlahooda khaaska ah iyo arrimaha kale ee bulshada si ay u muujiyaan kaalinta ay ku dhex leeyihiin mujtamaca sidaasi awgeed waxaa lagama maarmaan noqotay in dhalinyaradan ay helaan siminaaro sare loogu qaadayo awoodooda hogaamineed iyo midda xafiiseed intuba wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland oo ka duuleyso muhiimadda arintani ayaa marar badan oo hore deegaanada Jubbaland guud ahaan waxa ay qaban qaabisay tababaro daayarta la siiyo iyadoo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah sidoo kale maalmihii u dambeeyay degmada Doolow ee gobolka Gedo waxa ka soconayay tababar ay fulinaysay shabakada YPA Soomaaliya oo taageero ka helaysa hay'adaha qaramada midoobay ee UNFPA iyo UN Habitat kaas oo ku saabsan hogaaminta iyo maamulka xafiiska isla markaana loo qabanayay golaha dhalinyarada degmada Doolow tababarkan oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa ahaa mid aad looga faa'iideystay waxaana xubnihii ka soo qayb galay la gudoonsiiyay shahaado cadeynaysa wixii ay ka kororsadeen waxyaabaha ugu muhiimsan oo kamid ah waxa weeye shaqooyinka ay kala leeyihiin dhalinyarada ka shaqeynaysa xafiiska sida gudoomiyaha shaqada uu qabanayo tababarkan waxaan aaminsanahay inuu bilow yahay insha Allah dhamaadkiisana waxaan aaminsanahay in aynu yeelan doono awoodii iyo xirfadii iyo cilmiga aan ku maamuli lahayn xafiiska waan bogaadinayaa YPA waxay naga caawisay waxyaabo fara badan arrimaha peace building-ka ee aad nooga shaqeysay maanta waxaan aragnaa inay tababarayso xafiiskina noo qalabeynayso marka xafiiskii oo qalabkiisa lagu siiyay iyo qaabkii aad ugu shaqeyn lahayd oo lagu tababaray waxaan aaminsanahay inay hawl weyn oo YPA ay qabatay inay tahay mustaqbalka wuxuu naga caawin doonaa waxyaalo badan inaan sahal noo noqoto dadka sida aan nidaam lahayn u soo dhaweyn lahayn sidoo kale sidaan feeralka iyo shaqadan aan u gudan lahayn sida loogu talagalay inuu xafiiska uu noqdo xafiis dhalinyarada ay ku hormari karaan iyo horumarka deegaanka labadaba mid ka shaqeynaya waa inuu noqdaa aqoon hadda ka maqneed ayay traininnadan aan qaadanayna inagu soo kordhinayaan waayo wuxuu naga caawinayaa si xafiiskanaga uu ku noqdo xafiis si wanaagsan u shaqeynayo iyo deegaanka iyo dhammaan ay ku qanacsan yihiin iyo dhalinyarada deegaanka ku xeeran hay'addu waxa ugu mahadcelinaynaa sida tababarka ay noogu qabatay waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijyada noo badiso dhalinyaradan ayaa ballan qaaday in wixii ay barteen muddadii ay cashiradan qaadanayeen ay uga faa'iideyn doonaan deegaanada kale ee ku dhow degmada Doolow sida Beled Xaawo oo ah meesha ugu sokaysa sida ay qireen xubnihii nasiibka u yeeshay inay helaan cilmiga aqoon kororsiga noocan oo kale ah waxa uu dhalinyarada u sahlayaa in ay si fudud ula socdaan ulana jaan qaadaan nidaamyada casriga ah ee dunida maanta loo maamulo xafiisyada iyo in ay si fudud u bartaan hababka kala duwan ee loo soo maray maamulidda wixii laga yiri iyo wixii laga bedelay taasna waxa ay khibrad dheeri ah u siinaysaa in hogaaminta wanaagsan ay la qabsadaan sidoo kalena ku maamulaan xafiiskooda